السلام عليكم maanta waxaan idin hayaa muuqaal xiiso leh oo aan ka hadli doono taariikhda iyo marxaladaha uu soo maray iyo marxaladda hadda uu taagan yahay baasaboorka Soomaaliya. Muuqaalkan waxaad ku ogaan doontaa xaqiiqo laga yaabo inaan hore ogeyn. Fadlan la joog ilaa dhamaadka muuqaalkan. Noocyada baasaboorka Soomaaliya. Baasaboorka Soomaaliya wuxuu leeyahay dhowr nooc. Baasaboorka caadiga ah waxaana la siiyaa muwaadiniinta caadiga ah raba inay ku safraan. baasaboorka diblomaasiga ah diplomatic passport waxaana la siiyaa saraakiisha dawladda ee darajada sare leh. waxaa jira mid saddexaad la yiraahdo passport service baasaboorka shaqaalaha dawladda. baasaboorka Soomaaliya markii ugu horeysay waxaa la bilaabay sanadkii 1960 xilli ay Soomaaliya xorriyad qaadatay. waagaas waxaa la isticmaali jiray green passport mid aan ahayn biometric laakiin si rasmi ah u shaqeynaya. xilligii dawladdii dhexe ee Soomaaliya 1969 ilaa 1991 baasaboorka Soomaaliya wuxuu lahaa sumcad wanaagsan waxaana muwaadiniintu u suurtagelinayay inay u safraan dalal badan oo caalamka ah. kadib burburkii dawladdii dhexe 1991 waxa dhacay kahore siyaasadeed iyo amni darro. xaramihii baasaboorka lagu bixin jiray way burbureen waxaana suuqa ku baahay baasaboor been abuur ah iyo qoraal sharci darro ah. dalku mar kale wuxuu galay go'doon caalami ah. dalal badan sida UK, USA iyo dalalka Yurub waxay joojiyeen aqoonsiga baasaboorka Soomaaliya. sanadkii 2000 dawladdii ku meel gaarka ahayd TFG waxay bilowday dadaalo dib loogu bilaabayo bixinta baasaboorka. waxa la furay xafiisyo waxa la sheegay in la bixinayo baasaboorkii hore laakiin lagu dari doono shaambad cusub si looga hortago wax isdabamarin. sanadkii 2007 Soomaaliya waxay bilowday bixinta baasaboor cusub oo biometric ah si uu la jaanqaado heerarka caalamiga ah. tani markaas waxaa si rasmi ah loo sameeyay microchip kaydka xogta qofka saxiix iyo sawir biometric ah iyo tiknoolajiyada adag oo lagu ogaanayo baasaboorka been abuurka. markii hore baasaboorada waxa lagu daabaci jiray dalka dibadiisa gaar ahaan Isutaga Imaaraadka Carabta taasoo keentay dib u dhac ballaaran. laakiin sanadkii 2010 waxa la furay xarun cusub oo baasaboorka lagu daabaco gudaha Muqdisho taasoo si weyn u yareysay waqtigii sugitaanka. sanadkii 2013 dawladda federaalka Soomaaliya waxay si rasmi ah u bilowday baasaboorka cusub ee casriga ee midabka buluugga ah waxaana lagu rakibay nidaam amni oo casri ah waxaana lagu heli karaa qofka kaliya haysta aqoonsi qaran, shahaado dhalasho iyo macluumaad la xaqiijiyay. maanta baasaboorka Soomaaliya wuxuu awood u leeyahay inaad ku safarto in ka badan 10 dal fiisa la'aan. sidoo kale 3 dal aad ku tagto fiisa arrival ka hor markaad tagtid garoonka ay dalbanaysaa fiisa. laakiin 153 wadan waxay ka rabaan fiisa ka hor intaanad bixin. marka la eego celceliska awoodda baasaboorada wuxuu kaalinta kaga jiraa kaalinta 99aad. sidoo kale celcelisana wadamada si fudud ku tagi karta adigoon lagu dhibin waxay lagu qiyaasaa 3% baasaboorka Soomaaliya wuxuu soo maray marxalad adag laga soo bilaabo sumcad, burbur iyo dib u dhis. haddii amniga iyo siyaasadda dalku hagaago waxa suuragal ah in baasaboorka Soomaaliya uu noqdo mid lagu ixtiraamo caalamka. waad ku mahadsantihiin daawadayaasha. fadlan hadda halkan la soo gaadhay like, share and subscribe.